daawadaha qiimiga badan waa mar kale IM252. Marka laga soo tago faa'iidooyinka badan ee tiknoolajiyadda casriga ah u leedahay nolosheena, waxaan isweydiin lahayn in sidoo kale ay leedahay dhibaatooyin badan oo aan koobnayn. Tusaalaha ugu fudud ee aan filayo inaad si dhow ila fahmi doonto ayaa ah sida ay taleefanada waaweyn u saameeyeen nolosheena iyo horumarkeena. Bal fiiri, haddii 10 dhalinyaro ahi maanta meel isugu timaado, salaanta ugu horeysa kadibba waxay u badan tahay in daqiiqado gudahood ay ku kala mashquulaan oo uu qofba telefoonkiisa ku jeesto. Marka laga soo tago in isu soo dhawaanshihii bulshada ay saameyn weyn ku timid, waxaa sidoo kale aad u yaraaday fursaddii uu qof kasta u heli jiray naftiisa, caafimaadkiisa, horumarkiisa, asxaabtiisa, reerkiisa iyo wixii lamid ah. Si taasi looga hortago, waxaa taleefanadana lagu soo kordhiyey qayb muhiima oo uu qof kasta ka ogaan karo inta uu la eg yahay isticmaalka maalinlaha ee telefoonkiisa. Waxaad tusaale ahaan ogaan kartaa inta saacadood ee aad maalin kasta ku bixiso adeegsiga telefoonka, barnaamijka ugu badan ee aad adeegsatay maanta, inta jeer ee aad telefoonkaaga ka furtay furasireedka, inta ogeysiis ee kuu soo dhacday ama notification, iyo waxyaabo kale oo badan. Intaasi aan ku kordhiyey, waxaad waqti u yeeli kartaa barnaamijka ugu badan ee waqtiga kaa dhumiya. Oo haddii waqtigaas la gaaro, kuma shaqaynayo barnaamijkaas oo idil haddii aadan adiga codsan in waqtiga barnaamijkaas lagu kordhiyo. Balan kuu faahfaahiyo anigoon hordhaca ku fogaanayn. Anigoo ku horeynaya Android-ka, si aad u ogaato waqtiga maalin kasta kaaga baxa adeegsiga telefoonkaaga, waxaad marka hore gashaa settings. Kadibna wax yar hoos u soco oo taabo halkan ay ku qoran tahay Digital Wellbeing and Parental Controls. Waxaad markiiba halkan sare ku arkaysaa saacadaha ama waqtiga aad maanta ku bixisay adeegsiga telefoonkaaga, 3 barnaamij ee aad ugu adeegsiga badan tahay, iyo warbixin kooban. Si aad u hesho warbixin dheer oo adeegsigaaga telefoonka ku saabsan, kaliya taabo qaybtan sare. Waxaad arkaysaa sida uu toddobaadkan ahaa adeegsiga telefoonkaaga, maalin kasta oo toddobaadkan ka mid ah iyo sida aad u adeegsatay. Si aad xogta toddobaadyadii hore u aragto, fallaartan bidix ka soco. Hoos u soco oo ogow inta ogeysiis ee aad heshay maanta, inta aad toddobaadkan heshay, iyo barnaamijyada inta badan ogeysiisyada kaaga imanayay. Sidoo kale, haddii aad hoos u sii socoto, waxaad helaysaa inta jeer ee aad maanta furtay telefoonkaaga iyo shax ku saabsan furitaanada toddobaadkan. Haddii aad doonto in aad waqti ku xirto barnaamijyada kaa dhammeeya waqtigaaga, dib u laabo oo imow halkan ay ku qoran tahay App Timers. Kadibna tag barnaamijka aad doonto in aad waqti ku xirto. Xulo waqtiga aad ugu talagashay barnaamijkaas maalin kasta. 15 daqiiqo, 30 mirir, 1 saac ama ka badanba. Markaad maalin kasta gaarto waqtiga aad barnaamijkaas u qoondaysay, waa uu isxirayaa, mana kuu furmayo barnaamijkaas inta laga gaarayo maalinka xiga haddii aadan adiga dheeraysan waqtigaad u xadiday barnaamijkaas. Si aad u ogaato waqtiga kaaga baxa maalin kasta barnaamij gaar ah sida Facebookga, taabo barnaamijkaas oo waxaad ogaanaysaa inta maalin kasta kaaga baxda adeegsiga barnaamijkaas. Kaliya geeska bidix u soco si aad u aragto adeegsigaaga maalmihii tagay ee barnaamijkaas. Hoos u soco si aad u aragto ogeysiisyada kaa soo gaaray barnaamijkaas oo keliya, iyo inta jeer ee aad barnaamijkaas kicisay maalin kasta. Ama halka hoose ka xulo qiimaynta maalinlaha ama midka toddobaadlaha. Waxyaabo kale oo muhiim ah ayaa ku jira qaybtan Digital Wellbeing, balse muuqaalo kale ayaan uga warramayaa. Inkastoo aanan rabin inaan ku fogaado, haddii aad iPhone leedahay, iPhone-nada waxay leeyihiin qayb la yiraahdo Screen Time. Waxaad ka dhex heli kartaa settingska. Marka aad furtaba qaybtan Screen Time, waxaad arkaysaa inta saacadood ee aad celcelis ahaan adeegsatay telefoonkaaga toddobaadkan. Haddii aad taabato See All Activities, waxaad arkaysaa warbixin dheeri ah.
adeegsigaaga maanta si aad u aragto taabo day. hoosna u soco si aad u aragto barnaamijyada aad maanta ugu adeegsiga badan tahay, inta jeer ee aad furtay telefoonkaaga, marka aad furtay barnaamijyada aad horay ka kicinaysay, inta ogeysiis ee kuu soo dhacday, barnaamijyada ay kaaga kala yimaadeen iyo xog kale. geesaha u soco si aad u aragto adeegsiyadaadii hore sida shalay, daraad iyo wixii la mid ah. si aad barnaamijyada qaar u xadido, taabo app limits, kadibna taabo halkan add limit. ku dar barnaamijka aad xadidayso iyo wakhtiga aad ugu tala gashay, haddii aad doontana ku xiro furusireed. qaybo kale oo badan ayuu leeyahay screen time-ka, oo faahfaahintooda wakhti badan ayay u baahan tahay. adiga ayaanse kuu daynayaa inta kale. su-aal maskaxdeeda ku soo dhacday ayaan rabaa inaan ugu dambeyn ku weydiiyo inta aanan muuqaalkan daaha ku daboolin. ma jiraa tallaabooyin aad qof ahaan u qaaddo si aad uga hortagto in aad waqti xaddhaafa ku bixiso telefoonkaaga? haddii ay jiraan farsamooyin aad adeegsato, fadlan inoogu sheeg qaybta hoose ee muuqaalka si looga faa'iidaysto. aniga ahaan waxaan sameeyaa telefoonka ayaan inta badan codka ka xiraa, ogeysiisyadana ka xiraa, barnaamijyada wakhtiga dhammeeyana hal qayb ayaan isugu geeyaa si aan isaga yareeyo adeegsigooda. anigoo huba inaad dadaal badan ugu jirto horumarkaaga, fadlan ha ilaawin inaad nagu soo biirto si aad u hesho muuqaalo wax badan ka bedela noloshaada. si gaar ahna waxaan kuu leeyahay horumar iyo farxad ku noolow. nabadgelyo.